waxaa jira millions of people oo fanku balwad u yahay, sheekadu balwad u tahay, qosolku uu balwad u yahay, balwad ee u tahay inay waxaan sameeyaan. laakiin gabar haday tahay dhilannimo iyo sharmuutanimo aysan u soo galin, wiil haduu yahayna khamri inuu cabo, inuu qaylo, inuu sigaar cabo, inuu shiishad cabo u soo galin fanka, oo u soo galay inuu entertainment ka helo. laakiin ina dadki la gaaleeyo oo wallahi billahi sometimes waxaan arkaa fanaaniin badan oo loo qoray ma tukataa, anigana aan huba 100% in dadkaas tukadaan. ama maqrib ha nagu wada galo anagoo hadda Somali museum oo kale markaa ka shaqeynayno, waxaan tageynaa galbiyaan tagnaa salaada maqribka oo kale haday practice tahay waxaan ku tukanaa Somali museumka, ku tukanaa meesha museumka. soo dhalinyarta inta dadaan tukan waa arkaysaa, qof dhalinyaro tahay Mareykan ay joogtaa, dad badan oo aan tukan, dad waxaan aqaanaa fanaan aan shaqo ku lahayn, wadaada oo malaysaan xishood, qofka xishood badan uu jiri, laakiin salaada aan tukan ilaa ay ku faan moogi aan madaxa fooda dhulka dhigan. marka iyo dad waxaa jiro iska daa salaada aan tasbiixdooda ka tagin, salaad iska daa xagga dhig, salaada wayba easy ba, laakiin maalintii kun istighfaarood iyo laa hawla walaa quwwata illa billah qalada iyo subhanallah iyo Allahu akbar iyo alxamdulillah ayagoon dhihin aan joogin, habeenkina aan seexan karin ilaa ay aayad kursi akhristaan. qofka noocaas oo kala ka wara asoo weesa qab ah ama asoo video soo duuba markaas wax soo qoraysa ma tukataa, waxa dhici karta qofkaas ina adiga ka aada ka salaad badneen, ka taqwo badneen, ka waxaysneen. hadda ka hor nin waxaa jiri jiray suuqa qaylin jiray, uu qaylin jiray maanta oo dhaa hebelow soo dhiib, hebelow soo dhiib, hebelow soo dhiib uu dhihi jiray. marka ninkii ayaa dhintay, markuu dhintay ayaa asxaabtii xamatay, waxay dheen asaas uu sameyn jiray, saan sameyn jiray. rasuulka kaleey salaatu salaam wuxuu yiri ninka ahlu janno waa, ahlu janno waa. markuu dhahay rasuulka, asxaabtu xidhan yaa rasuulullaahi suu ninka ahlu janno u yahay, waa ninkan saan uu sameyn jiray, saan wuxuu dhahay rasuulka kaleey salaatu salaam ninkaas suuqa joogi jiray oo sidaas u qaylin jiray aa ogeydeen, habeenkii markuu seexanayo qof kasta wuu cafin jiray, dadka dhan iska cafin jiray habeenkii markuu seexanayo. sidaas darteed baa markuu dadka cafiyo ilaahay dambigiisa asagana dhaafi jiray, saasuu ahlu janno ku noqday. imagine marka ii sheeg aad qofka bini aadanka wax ka sheegayso ama aad xamanayso, you never know in maaragta qofkaas qalbigiisa ma ogid inuu ahlu khayr yahay, ma ogid ahlu taqwa inuu yahay, ma ogid qof cibaado